الصوماليات انت magacayga muuqayga taqaano magacaygu waa Canab Cabdi Cabdullaahi Canab Kululi waxaana gudoomiyaha ururka haweenka degmada Balxawo oo xaq ah markii laga reebo burburkan iyo problemkan lagu sameeyay deegaanka waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin dacati ah oo ka dhacday degmada Doolo Soomaaliya oo lagu sameeyay gabdho masaakiin ah oo danyar ah ayadoo loo adeegsanayo shaati dawladeed oo loo isticmaalayo in lagu bahdilo oo lagu dhibaateeyo awalan xaq waxaan u leeyahay inaan ka hadlo wixii qalad ah oo deegaanka ka jiro aniga anoo safar ugu maqan Nairobi uu deegaanka la wareegay jabhadda farmaajo uu ka soo diray Muqdisho hadduu la wareegay waxaan ogaa dadka uu soo diray waxay yihiin waxa ay ku salaysan yihiin waxa ay ka shaqayn jireen waxa ay deegaanka uga maqnaayeen iyo waxa ay hadda ku sugan yihiin isla markaas waxaan go'aansaday inta jabhadda farmaajo ee deegaanka ka arriminayso inaana u gudbin u dhaqaaqin dawladda Kenya walaalaha inaan Ingiriis siyaasadda weydiisto intaas anay iga timid hadafkayga fikrigayga waana aqligayga saliimka because nin gabar miskiina oo walaashiisa oo waxba galabsanin oo waxba arag oo waxba ka warqabin oo xaamila ah gurigeeda ugu dhacay 7 saac barnaamij roob daay ka soo bixiyay sidoo uu wareejinay xabsi neeftiida galiyay yaa horta nasiib darro qabo iyo inta ku adeeganaysa waxaan rabaa inaan ogeysiiyo 6 gabdhood oo masaakiin oo ilma adeer ah baa xabsi lagu xaray waxa uu adeegsanaya dadka ayaga anagu dadkana waa isnaqaaneen waxba isuma dhigin jirin qofkii stupid waa naqaanay qofkii fiican waa naqaanay qofka xun waa naqaanay dadka waxa la rabaa in xun iyo fiican isugu dhex jiraan warqoon nabadoonkoodii iyo taliyahoodii iyo jinnigoodii iyo madaxweynahoodii iyo jiiskoodii isku mid yihiin waxaan la argo lama qalweey waxaan u gudbinaynaa hay'adaha sharci dejinta Amnesty International dadka aan dambiga lahayn bay qabataa maalin walba dambi buu leeyahay dadka dambiga leh oo Soomaaliya xasuuqayo oo 90 kood u celiyay oo farmaajo ka ka yahay oo ina kulan laba ka yahay oo shirkadda Hormuud 3 ka tahay bakaalko kan kala yiraahdo oo taliyaha xasilinta gobolka gada sheeganayo waa nin u shaqeeyo Hormuud Ali Xasan ilmaadariin ba Hormuudkii Ali Xasan wuxuu ku xiray in la yiraahdo kaariye oo u sareeyo qaybta oo gobolada u sareeyo kaariya la yiraahdo Muqdisho fadhiya waa ninka gobolka in la dhibaateeyo fanka ku bixinayo waxaan u sheegaynaa oo ugu baaqaynaa horta farmaajo 7 bilood u hartay inta tagan ceeb lagu masagootiyo ama gabar ha xiro ama amarkiisa lagu xiro ama ha lagu dilo ama jiis kulane hawlgalka aan wadno iyo deegaanka dib aan u xoreysanayno oo ma baaqanayso gabar la soo xiray iyo mid la dilay iyo mid la dhacay iyo mid la jabiyay ma baaqanayso aku bishaareysto jabhadda farmaajo ku bishaareysto anagu reer Jubbaland baan nahay reer Gadaan nahay reer Daawaan nahay waxaan nahay dadka deegaanka u dhashay ma guureyno ma zuuleyno dawlad goboleedkana hortii baa lagu dhawaaqay Mareykanka asaga uu ka yimid ba isteed leh wuxuu burburin kara maaha nacayb uu qaba Axmed Maxamed Islaam iyo dawladdiisa inuu deegaankana ku burburiyo oo la yiraahdo Mareykanka uu ka soo jeeday uu saas la dhaqmaya kuma noqonayso qiileedo nagama soo jeedin waxba noogama kaabeen shaqo kugu malihin dawladdaada iyo dalkaaga iyo inta ku daba soctaa wax ku ah anagu wax noo ah ninka aan faragelin waxba lagu dhibaateynin waxba noo sameeynin maxkumo waa mudan Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha ruuxiga ah oo dawlad goboleedka Jubbaland hoggaanka ka ah waxaan u baaqayaa wasaaradda haweenka Jubbaland tamida federaalka lamaan inay ka hadasho xasuuqa loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed oo qaar xabsiga saakay ku dulmayaan oo qaar ay xaamilooyinka yihiin waa inay ka hadlaan qaasatan wasiiradda haweenka xuquuq insaanka arrimaha qoyska federaalka Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf kuma aadan imaanin jeclaysi 4.5 baad ku timid waxaad ku magacaabantahay magaca gabdhaha walaal waxaan ku sheegaynaa bari hadda tagto sumcad kuma aadan tagin hadda joogtan kuma aadan joogin because hal gabar ah intaad wasiiradda Soomaaliya ka noqotay hal gabar ah oo Soomaali ah oo wax u qabatay laba sheegin kuwa 4 sano jiraan ku fsanaya maxaa ka hadasho sheegtay maxaa ka qabata waxaan ku leenahay kursi buuxisaata waxa qabanaysa ma jirto waxaan ugu baaqaynaa international community-ga qaybaha ay qusayso beesha caalamka safiirka Mareykanka midowga Yurub dadka dhaqaalaha Soomaaliya siiyo in ay ka faajignoodaan dhibaatada ka taagan deegaanada way waraysan karaan hay'adda samafala oo UN hadgan doono ilaahay baa lagu dhashay xaalad 7 saac iyo mar gabar haweena oo masaakiin gurigeeda jiifto oo 7 bilood joogto foolto jawaabayso ninka inta garabka ku dhagay 10 nin oo askari ay waardiyeynayso gabadha ma qof bay dishay ma hogaamiya ma nin qof booliis soo maraa
حال ودي وتان قبل وحال ولا إني قبيل والروح السوقية هو اللي أديك سنين ودن إن لو أديك سنين ما أي أجو وحي ماذا ماشي دولة كتير ماشي دولة كتير إمتى تجينا عبر بس قلتي أنا خاصة وحان أباقية لا تكديجان كأول شيء نبضنا سراكيشة سياسيين أنت واحد قرنا يسوع إلا إسكعليو ولا إسكا يبهدلك يا جميسك وباشا جوري أساري فرماتشي يتشيس كلاني all in all حكوا سو جبينيا هذا الكيجاس قدّا دير إنه دقيستو مدحوينا دولة قبلات كتشوبلان إنه ركوني كيسجليو إن دتك الدباتينيو والدولة ديسي والدجان كيسي أنا جا كترجنو أنا جا هوان كا أنا جا سوقد بينه إن لو قد بي international community كا إن لو قد بي إن سفير كماليكان كا إن لو قد بي أرينا الصومالي دتك قصيصو إن لو قد بي ميدوغا يوروب إن لا عن لو قد دباتين قالها الدون كلا كانوا دتك الصومالي ده إن أنا لو دباتين دجان كقبل كجدو دجان كقبل كجدو كوي تواصلوا شاب صدق تواصلوا شاب حركي وح حرية ما هين أنا فرماتشو وح حرية ما هين قبيل مريحان يدارو وحوها دجان كدت كسوجري أو ميدك مركايدا وها وزير كأمن الدولة قبلات كتشوبلان أو حل عيدا قداميتك معها دبك عيجها تجاها حتى مقالة جاد وتولد جاد وين حكى صعدة دجال شباب ودتك وجيسني شاتولو وفريا سد هذا 100 كيلومتر بعيد شباب مدقنين أبني بيهين وحكى استالي قبلي سما فلك مرقاتك إكرام مرقاتك الرملة سما فلك أدونك وصادنا مرقاتك أنت بقولي 20 كيلومتر اللي سمري بقول حاول لغة كده حساف به وحكى لي جاي ما أهين قبيل ما أهين شفنا ما أهين وزير كأمني جوها وزير كأمني قال لهم يقول الشيء ما دمنا محن كنت بدي أنا خالص سي وحي وحشاق قد الواحد شن بلاد بكون حرنا وأفضل بحرنا ما تشوفه إلهي ما كسب بالبادية لا قاعد فري جلال بك عمنت لعكتي سا دقاليه سا عقلي سا واحترك كسب بالبادية وحن يدين شاقينا باش وناس الدولة كتير وحاول يذكر على الحسوقية عبد الرحمن عبد الشكور هذا قاعد يروح يقول عاي شيخ شريف شيخ أحمد وهذا كي يروح يقول عاي حسن الشيخ محمود أتو دفع الحلاج الصومالي أسوأ قري وهذا كبرايم مينستر هذا كصادق وهذا ككاني ديجانك وهذا وزيد وكل سبعية أيوة ماشي وتشوف بفعل الله ومريكن كأهل وهذا كوكتشر فريق يلما هذا رياله وحنا نروح معها وحاول ذاتك عاول وحنا هنا بيدمان وحسوقيا أنا قدر نقول حسوقيا واللي ما قدر نقول حسوقيا ديجانا سدح على حسوقيا وحنا واحد مسلم في سنكر معها وحاول أفري طبعاً كسبوا وكذا أنتهي سياسة ديال شاشية نقول لجرا هل كان كبتشوتشين إنه ديجادنا إن شاء الله بالكريم دي بنعلو رجينا وإذا السلام يا أمة الصوماليات أنت وحفاه ميسو وإذا أنت وحفاه إنه أيوة إبراه برشة صادق تاني أو عيان كبراه برشة أنا إلهي من دين بريان عذرك الله إنك قاضو باهي من هيسن الله إنك قاضو إن وحياة قادر إنسان ماشان إلهي حق يسين كسير وإذا